kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saareyno xaaladaha ugu dambeeya ee soo xulista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ay yeelanayso iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan Villa Soomaaliya tan iyo markii Sabtidii aynu ka soo gudubnay si lama filaan ah golaha shacabka ay kalsoonidii kala laabteen xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre waxaa jira mashquul aad u xoogan oo diiradda lagu saarayo soo xulista ra'iisul wasaare cusub iyadoo lagu kala aragti yahay marka la eego sida ra'iisul wasaaraha cusub uu ku imaanayo muddo xileedkiisa iyo rabitaanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo la sheegayo in uu salka ku hayo sidii uu gabi ahaanba muddo kororsi u samaysan lahaa iyadoo arintan ay dad badan cambaareynayaan dad badanna digniino horle ay ka soo saarayaan marka aynu ka hormarno Villa Soomaaliya wali waxa ka socda dadaalo aad u xoogan iyo wada tashiyo looga tashanayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyo cidda si gaar ahaaneed looga soo xulayo ama beesha laga soo xulayo iyadoona sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si gaar ahaaneed ugu mashquulsan yahay in wada tashiyada qaar uu geliyo hoggaanka dawlad goboleedyada dalka warar hoose oo aan helayno waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo safar degdeg ah ku soo gaaray maalin ka hor magaalada Muqdisho uu qayb ka yahay dadaalada la doonayo in ra'iisul wasaare cusub lagu soo magacaabo waxaana uu doonayaa qof Galmudug ka soo jeeda in uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa dadaalkiisii ugu xooganaa ugu jira sidii madaxweyne Farmaajo uu ra'iisul wasaare ugu magacaabi lahaa qof ka soo jeeda beeshiisa ila wareetiyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Qorqor uu xalay xarunta nabad sugidda kula kulmay taliyaha Nisa Fahad Yaasiin isaga oo kala hadlay arintan Qorqor ayaa waxa kulanka ku weheliyay Kamaal Guutaale Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan iyo xubno kale oo ay isku beel yihiin waxaan ujeedadu ay tahay in qof ka soo jeeda beeshaasi laga dhigo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uuna qofkaas la jaan qaadi karo dhinaca siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo inuu dalka ku hogaamiyo kulanka ayaa daba socda kulamo kale oo Qorqor uu la leeyahay xubnaha ugu muhiimsan ee dawladda si uu u xaqiijiyo in beeshiisa loo magacaabo xilka ra'iisul wasaarenimo ee cusub madaxweyne Qorqor ayaa sidoo kale shalay la kulmay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana codsaday xilkan waxaana la filayaa in sidoo kale kulamo uu la yeesho saacadaha soo socda xubnaha ugu muhiimsan dawladda ku jira dadaalada xoog leh oo wado Axmed Cabdi Kaariye ayaa bilowday intii uu socday shirka Dhuusamareeb waxaa jira warar sheegaya in laga yaabo inuu wax ka ogaa xilka qaadistii ra'iisul wasaare Khayre dhinaca kale ee daawadayaal waxaa jirta arrin badan oo shaki abuurtay ilaa iminka xilka qaadista ra'iisul wasaaraha inay sax tahay iyo inay qalad tahay waxaa ka hadlay oo kaliya hogaamiyaha ama madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kamaysan hadlin maamul goboleedyada kale waana sabab su'aal la iska weydiinayo warar hoose waxay sheegayaan in isfahan ay gaareen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland isla markaana mashaariicyo ka xirnaa Axmed Madoobe dib loogu fasaxay sida daraadeedna uu arintan uga gaabsaday sidoo kalena warar kale ayaa sheegaya in dhammaanba madaxda maamul goboleedyada ay ka warqabeen qorshaha ridista Xasan Cali Khayre oo laga soo maleegay kulamadii ka socday Dhuusamareeb laakiin ilaa iminka wararkaas xaqiiq looma hayo oo wararku waxay yihiin kuwa la isla dhaxmarayo waxaana sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka socda dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo siyaasadda dalka quseeya aynu ka horeynay waxa xalay magaalada Muqdisho kulan xoog leh ku yeeshay guddoonka golaha shacabka Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran hoggaankeeda waa madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaana dhinaca guddoonka matalayay gudoomiyaha golaha shacabka Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa Cabdiweli Ibraahim Muudey kulanka waxa uu ahaa kulan ka duwnaa kulamadii hore oo labadan dhinac hore iyagoo erga ka ah madaxweyne Farmaajo ay ula kulmayeen madaxda madasha laakiin xalay waxay ahaayeen kulan ay si iskood ah ugu yimaadeen hoggaanka madasha ayna kala hadlayeen xaaladda ka jirta dalka iyo sida wax looga qaban karo waxaa daawadayaal jirta in kulankaas lagu soo hadal qaaday guud ahaanba xaaladda dalka ka jirta iyo wax laga qaban karo iyadoo la isku afgartay in xilligan doorasho xilligeeda ku dhacda maahe wax kale aysan Soomaaliya dawo u ahayn sidoo kalena madasha xisbiyada qaran waxay sheegtay
in haddii doorashada dib ay u dhacdo qalalaasa dalka uu geli karo madaxweyne farmaajona looga fadhiyo 5 bilood ama 6 bilood ee u hartay ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabi doono in uu isku keeno nidaamkii ay u hirgali lahayd doorasho noocan oo dalka laga hirgaliyo sidoo kale waxay codsadeen in shirka dhuusamareeb aan dib loo dhigin oo aan la dayacin iyadoo sidoo kalena ay sheegeen in xilligan la joogo xilligii iskaashi laga yeelan lahaa hogaanka golaha shacabka ayaa iyaguna waxa ay ku raaceen talaabadan oo waxay sheegeen in xaaladda marka loo eego ay tahay mid aad u qasan loona baahan yahay iskaashi buuxa in laga yeesho daawadayaal magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidoo kale waxyaabaha aadka looga hadalhayo waxaa ka mid ah in Cabdiraxmaan Cabdishakuur isaguna bogiisa Facebook uu soo dhigay muuqaal ka baxay mid ka mid ah telefishinada Soomaaliyeed oo looga hadlayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyo sida loo soo dhigayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa diiradda ku saaray muuqaalkaasi in qof doonaya in dalka aysan doorasho ka dhicin qof doonaya in dalka dhibaato ay ka dhacdo uu la mid yahay qof xoolo ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur qoraalkiisa dad badan ayaa ka aragti dhiibtay waxaana uu ka mid yahay siyaasiyiinta saameynta leh marka loo eego guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xisbiyada hogaamiya Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ka mid yahay saxafiyiinta doonaya in doorasho xilligeeda ku dhacdo dalka ay ka dhacdo waxaana horey u jirtay in isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hawada isku marsiiyeen qoraallo iyo waliba hadallo markaasi labada dhinacba isku weerarayeen waxaana sidoo kale jira siyaasiyiin kale oo iyaguna aad markaasi u diidan nidaamka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku doonayo in doorasho muddo kororsi uu ku sameesto wararkii ugu dambeeyay ee dadka ugu cadcad hadii aynu eegno in ay ku soo baxaan xilkan intooda badan waxay yihiin dad galmudug ka soo jeeda amaba dhinaca iyo galmudug ka soo jeeda oo xilal dawladda ka haya iyo kuwa xilal aan haynin xildhibaano wasiiro iyo siyaasiyiin horey dalka xilal uga soo qabtay ayaa ka mid ah dadka ugu cadcad hadii aan eegno waxaa ka mid ah fursade oo isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta madaxtooyada dalka Soomaaliya aad kan uga agdhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug iyo siyaasiyiin kale oo saameyn leh isla markaana loo badinayo in midkood uu soo bixi karo sidoo kale wararku waxay sheegayaan in gobolka Hiiraan siyaasiyiin ka soo jeeda ra'iisul wasaare laga dhigi karo laakiin inta ugu badan waxa la hadlayo waxay tahay gobolada dhexe dhinaca Galmudug in markaasi ay u badan tahay in ra'iisul wasaaraha cusub uu ka imaan doono baraha bulshada waxa lagu faafinayaa warbixino kala duwan oo hadba dadka ay aragtidooda ku cabirayaan laakiin waxay u badan tahay la leeyahay in beesha habar gidir uu ka imaan doono ra'iisul wasaaraha cusub isla wararka ugu dambeeyay ee la xiriira soo xulista ra'iisul wasaaraha cusubna waxa ay muujinayaan in baqdin xoogan laga qabo in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu mar kale culays siyaasadeed la kulmo isla markaana inta badan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya waa ay diidan yihiin in doorasho waqtigeeda dhaafto dalka ay ka dhacdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku adkeysanayaa inuu u baahan yahay in diiradda uu saaro dhinaca ra'iisul wasaare cusub inuu keeno isla markaana madaxweynaha afkiisa oo aan laga heenin muddo kororsi haddana siyaasadiisa ayaa u eg ayaa la leeyahay haddii aanu eegno isla wararka la xiriira madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la leeyahay beesha caalamka culays ay ku hayaan oo waxay leeyihiin waa qasab in shirka dhuusamareeb dib loogu laabto oo guddi farsamo aad magacaawdo isla markaana shirkaas aan dib looga laaban ilaa haatan dawladda federaalka Soomaaliya guddi farsamo ma magacaabin Jubbaland iyo Puntland waa ay magacaabeen waxaana tani muuqata in Hirshabelle oo kale ay iyaguna ka mid yihiin dadka magacaabay guddigan laakiin ilaa iminka dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya waxba kama soo naasacada xaaladda wali ma aha mid degan wali mashquul xoogan ayaa jira oo ra'iisul wasaaraha cusub lagu soo xulayo dadkuna aragtiyo kala duwan ay dhiibanayaan laakiin siyaasiyiinta ayaa waxay u arkaan ra'iisul wasaarahan inuu noqon karo mid marxalad adag oo looga gudbayo isla markaana aan wax badan soo kordhinayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka mid ah dadka sheegaya in ra'iisul wasaarahan uu noqon karo mid dadkiisa ka go'ay mid dad kale aan u baahnayn isla markaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay uu doono gudbin kara taasi oo uu sheegay in aan la aqbali karin haddaba sidee ayaad u aragtaa xaalad cakiran ee dalka ka jirta
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka imaanaya maxaa la gudboon ee isleedahay ruux nooce ah ayaase iminka ku haboon in ra-iisul wasaare dalka uu noqdo fikirkaaga qaybta commentiga inoogu reeb subscribe inoo saar like inoo saar asxaabtaadana la sii wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku salaysan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino Hiil Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada